madaxweyne xasan sheekh waxaa lagu doortay laguna dhaariyay dastuur heshiis lagu yahay oo ku qotoma hanaan federaal ah nidaam baarlamaani ah iyo doorasho la isla ogol yahay oo afartii sanaba dalka marka dhacda waxa ayaan daro ah inay Soomaaliya maanta ku jirto firaaq dastuuri ah maadaama uu madaxweynuhu isku dayay inuu cutubyo kamid ah dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee 2012 uu bedelo si baalmarsan hanaanka wax ka bedelka dastuurka nasiib daro dastuurkii dalka iyo dadka Soomaaliyeed isku hayay maanta waa kala dhantaalan yahay dalkana waxaa nasiib daro dastuur oo ah rabitaanka madaxweyne xasan sheekh 35 sano ka hor waxaa dawladnimadii Soomaaliya galaaftay hogaamiye Soomaaliyeed oo laalay dastuurkii heshiiska lagu ahaa xukunkana isku dhajiyay 8 bilood iyo 26 maalmood ayaa galabta ka dhiman madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh waxaana iyadoo ay madaxweynaha u hartay muddadaas kooban aan weli heshiis laga ahayn doorashada heer federaal ee soo socota taas oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo dawladnimadaba u horseedi karta khilaaf hor leh iyo hubanti la'aan siyaasadeed waxaa sidoo kale magaalada Muqdisho ka socda diiwaangelin doorasho aan heshiis lagu ahayn kuna qotonta qasab qori iyo qafaal waxaa maanta khatar ku jira midnimada dalka waxaa go'ay xiriirkii ka dhaxeeyay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo ay colaadisay dawladda madaxweyne xasan sheekh taas oo nasiib daro horseeday kala irdhow siyaasadeed khilaaf hor leh halisna ku ah dalka iyo geedi socodka dawladnimada gaar ahaan isku haynta iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaa qaybo kamid ah gobolada dalka maanta ka aloosan xasarado iyo colaado ay ka wado dawladda madaxweyne xasan sheekh waxaana ayaan daro ah in askar Soomaaliyeed oo loo carbiyay ilaalinta nabadgelyada iyo la dagaalanka khawaarijta ay iyagu dhexdooda maanta dagaalamayaan dhufaysna ay isugu jiraan gaar ahaan gobolka Gedo waxaa maanta sidoo kale xaalad adag ku jira ganacsiyada iyo dhaqaalaha dalka waxaa haawanaya suuqyada ganacsiga waxaana dalka dibadiisa maalgashiyo ku sameynaya ganacsatada Soomaaliyeed oo hantidooda kala cararaya duruufaha qalafsan ee dawladda hadda jirta dalka ka abuurtay waxaa xusid mudan in nidaamka dawladda hadda jira oo uu hormuud ka yahay madaxweyne xasan sheekh in nidaamka ay dalka ku hogaaminayaan awgeed inay dadkii Soomaaliyeed ka sii hayaamayaan dalka ay u guurayaan dalal shisheeye halka ay dhalinyaradii Soomaaliyeed badaha ku la'anayaan iyagoo raadinaya nolol iyo rajo ka duwan tan caawa ka jirta magaalada Muqdisho madaxweyne xasan sheekh waxaa xilka lagu aaminay iyadoo degmo waax iyo xaafad kasta oo ka tirsan caasimadda dalka ay dawladdu ku leedahay dhul dan guud ah waxaa musiibo qaran ah in madaxweynaha dalku uu maanta si suuq madow ah ku iibinayo dhulkii danta guud qoray caaradiisna ku barakicinaya shacabkii danyarta ahaa ee ku noolaa dhulalkaas waxaana xusid mudan in dhulkii danta guud lagu sii ballaarinayo dhul ay leeyihiin dad shacab ah awoodda dawladnimadana lagu boobo dhul ay dadweynaha Soomaaliyeed
u haystaan lahaansho sharci ah. dhinaca beesha caalamka, dowladda Soomaaliyeed waxay ku tiirsan tahay kab iyo kaalmo caalami ah. miisaaniyadda dowladda waxaa 67% bixiya deeq bixiyaasha caalamka. waxaana ku noolnahay duni aan go'aanada loo gaarin sidii loo gaari jiray. isbeddello waaweyn oo mudan in si xilkasnimo leh loola falgalana waxay ka socdaan caalamka iyo gobolka aan ku noolnahay. waxaa sidaas daraaddeed ilaa hadda la baadi goobayaa quusna laga taagan yahay dhaqaalihii lagu bixin lahaa ciidamada nabad ilaalinta ee loo qoondeeyey Soomaaliya, maadaama uu musuqmaasuq iyo habdhaqanka dowladda hadda jirta ee uu hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh ay horseedeen inay dunidu ka sii aamin baxayaan dowladnimada Soomaaliya.